gabagaboobay dhageysiga maalinka koowaad ee wareegga koowaad ee dacwadda dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ka dhaxaysa ee la xiriirsan dacwadda badweynta Hindiya Soomaaliya. maxkamaddu waxay diiday inay aqbasho codsi uu soo jeediyey xeeladaha guud ee qaranka ee dowladda Kenya uu ku codsanayay inuu ka jeediyo 30 daqiiqo isagoo ku sharxaya sababta ay dowladda Kenya uga maqnaatay dhageysiga wareegga koowaad ee maanta maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ka furmaday. maxkamadda bilowgiiba waxay sheegtay inay go'aankaas ay qaadatay, dacwadii doodana way sii daysay, way furtay, kabacdina qareennada Soomaaliya iyo wafdigii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed oo wakiilka ahaa dowladda Soomaaliya waxay jeediyeen soo jeedintoodii. kabacdina waxaa la guda galay dooda la xiriirsan qareennadu si fiican bay u sharxeen positionkooda iyo aragtidooda ku aadan dooda, waxayna qeexeen in badda Soomaaliya ee dowladda Kenya muranka ay gelisay inay tahay wax aan sax ahayn. waxaana ummadda Soomaaliyeed halkan uga sheegaynaa in maalinkii koowaad ee la xiriirsan wareegga koowaad ee dhageysiga dacwadda dowladda Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxaysa inuu si fiican u gabagaboobay, difaaca baddana ay si fiican u socdo. waxaana ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inuu wareeggan uu noqon doono wareeggii u dambeeyay dhageysigan dood afeedkan hadda socda wareeggiisa koowaad iyo kan labaad la fili doono inuu ahaan doono midkii gabagabeyn lahaa dooda, kabacdina ay maxkamadda u dirto xukunkaasoo aan filayno inuu Soomaaliya favorkeeda u noqdo. aad baa mahadsantihiin.